al-shabaab iyo daacish waa kutaan waana shilin ku nool dhiigga dadka Soomaaliyeed oo waxtarka leh argixisooyinka sharta badan wax kale ma qabtaan oo aan ka ahayn inay dilaan dhaawacaan ama dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed oo muslimka ah waxa ay ka been sheegeen kitaabka Alle iyagoo ummadda iskaga dhigaya kuwa diinta u adeegaya waxa ay weerareen oo ay qarxiyeen goobaha cibaadada sida masaajidada iyo goobaha lagu barto diinta maxaa looga baqaa waa in yar oo nabadid ah oo la ay dadka waxgal ku ah bulshada waxa ka badan Soomaalida nabadda jecel inta aan qarinayno difaacayno caawinayno oo guriyeena ku haysano iyana waa in gumaadayaan oo guriyeena ay duminayaan muwaadin argixisooyinka sharta badan nagala shaqaysadii aan shartooda ugu badbaadin lahayn waalidiinteena walaalaheena iyo caruurteena waxaanu haysanaa awoodii aan ku joojin lahayn haddii aan lidmo haddii Soomaalida nabadda jecel ay u istaagi lahayd badbaadinta dalka dadka iyo diinta oo ay garab istaagi lahaayeen ciidanka amniga waxa muwaadin kasta uu heli lahaa nabad uu ku seexdo kuna soo tooso madaxda iyo ciidanka amniga Puntland oo sida gaarka ah u tababaran ee BSF waxa si sharaf leh kaaga codsanayaan inaad soo sheegto haddii aad aragto wax ama qof aad ugu shakisay in uu xiriir leeyahay al-shabaab ama daacish soo wac lambarkan booliska ah ee furleh 59 50 41 ama eber 9 eber 6 59 50 41 waxaad heli doontaa awaalmarin aad ku qanacdo adigoon cidna ku ogaan farintan waxa idinkaga imaanaysaa warbaahinta ciidanka amniga Puntland BSF taliskeeda magaalada Boosaaso